Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena ummadda. Fadlan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelka furo, like-na saar videoga hadduu ku cajabiyo. Wixii talo iyo tusaale ah commentiga noogu reeb, share-tana la wadaag asxaabtaada iyo family-gaaga. Waad mahadsantihiin. Qisadeena maanta waa qiso la yaab leh. Waxay dhacday 2020kii magaalo la dhaho Maxalla an-Naciima oo ku taala Lubnaan. Waxaa jira aabbe Suuriya haysta 3 carruur ah, magaciisana la yidhaahdo Cabdiraxmaan Al-Cakaari, dhashay 1983 ayaa waxaa gurigiisa laga helay isagoo meyda. Waxaana lagu dilay ninkan dhagax lagu dhuftay madaxiisa. Dabadeedna waxaa bilaabatay in ay dambi baadhayaashii meesha yimaadaan bal hadda baadhaan, iyada oo dadka ku noolaa Maxalla an-Naciima iyo guud ahaanba waddankaasi Lubnaan uu soo food saaray warwar aad u daran, taasoo ahayd dhacdooyin dhacay in kooxo Lubnaaniyiini intay is urursadeen dadka qaxootiga Siriyaanka ay dilayeen iyagoo doonaya inay waddankooda ka saaraan. Taasina waxay sababtay in dadkii argagax ku abuurto. Haddaba waxaa la bilaabay in la baadho yaa dilay Cabdiraxmaan Al-Cakaari. Meydkiisii waxaa loogu yeedhay doctor ama dhakhtaro. Waxaana la yidhi gurigiisa ayaa lagu dhex baadhayaa. Yacni qisadani waxay u eg tahay qisadii fanaanadii reer Lubnaan ee Naazil Ajram ninkeedii oo kale. Dabadeedna adigu waxay qaadatay ugu yaraan 4 wiig sidii loo baadhayay. Waxa ayna aad uga shakiyeen haweeneydii uu qabay ninkani. Markii guriga uu ninku u soo dhacay ee uu dilay ninkan, Cabdiraxmaan iskama celin miyaa? Waxay soo saareen in aanu ninkani haba yaraatee dhaqdhaqaaqin markii lagu dilayay madaxa, dhagaxa lagala dhacayay sidii qof meyda oo kale. Xaaskiisuna mayna joogin. Haddaba xaaskii ayaa waxa loo kaxeeyay qaybta baadhitaanka mar labaad. Waxaana la yidhi sheeg maxaad ku samaysay ninkaaga. Intii baadhitaanka lagu waday waxa ay dhakhtaradii soo saareen in Cabdiraxmaan jidhkiisa laga helay sun aad u daran, taas oo dhammaanba saamaysay uurku jirta. Hadday mindhicir tahay, hadday beer tahay, hadday kaliya tahay. Lama garanayo nooca ay ahayd suntani, laakiin in ay sun saamaysay oo in doora la ildarnaa isaga oo lana liito oo suntaaba la liitana la dilay. Haddaba haweeneydiisii markii xooggii la saaray waxa ay tiri aniga ayaa idiin sheegaya. Waxay tiri horta anigu ninkan ma rabin, waxaan la saaxiibay nin asal ahaan ka soo jeeda isna Falastiin oo ku noolaa isla meesha ay ku noolaayeen ee Maxalla an-Naciima la yidhaahdo. Aniga iyo ninkayga iskaashanay. Ninkaygana waxaan arkay wuxuu ii soo jeediyay inaan suntan ugu daro. Suntii baan ugu daray. Ninkaygiina ka hor intaanu dhiman maalin ka hor baan ugu daray. Ninkaygu aad ayuu liitay, aad ayuu sakaraaday, wuxuuna ogaaday in uu dhimanayo. Kadibna waxa uu yeedhay carruurtiisii si uu ula dardaarmo. Carruurtiisa is ilaaliya, xaaskiisa carruurta ilaali. Indha adaygeeda waxay soo qaadatay fiidiyoo ama moobilkeeda ayay fiidiyoo furtay, waa ka duubtay. Maxay ku celcelinaysaa? Waa caadi baraad kacaysaaye ma dhimanaysidee is adkee. Hadda waa naagtii ninkan dishay. Indha aday kii ugu darnaa weeye. Fiidiyoogiina taleefankeeda ayay ku haysatay. Askartu markii dambe waa arkeen. Waxa dhacday oo kale in markii ay aragtay ninkan ha iska sakaraado laakiin ma dhiman oo Ilaahay cimrigiisa waa uu dheereeyay. Waxa dhacday inay tiraahdo ninkan waqtigiisa waaba dhaafaye. Sidan isay ku dhacdaa. Habeenkii ninkii iska jiifsaday oo iskaba sakaraada ayay ninkii guriga soo gelisay. Ninkii baa gurigii soo galay, madaxii buuna kala dhacay dhagaxii. Sidaa ayuu ku dhintay ninkaasi. Qiso kale ayaan nooga sheekaynayaa oo iyaduna isla fiidiyoogaasa. Waxa dhacday Masar
nin ayaa wuxuu qabay haweeneydana waxay ahayd 60 jir isaguna muxuu ahaa 40 jir 20 sano oo dhan bay ka weyneyd laakiin 20 sano maxaa u qarinaya haweeneydan ilaahay wuxuu ku manaystay lacag yacni haweeney tijaarada bay ahayd dabadeedna markii uu dhowr sano qabay 18 sano waxaana ay u dhali weyday baa waxa uu yeedhay yacni wuxuu waan guursanayaa gabadh masriyada oo 30 jir ayuu soo aroostay xaggay reerkii degeen yacni isla gurigii xaaskii weyneyd waa ka raali waa ogtahay inayna dhalayn hadeer islaan weynay noqotay markaa waxay tiri dee iska soo arooso halkii sidii iskaga noolaayeen oo farxad iskaga noolaayeen ayaa waxa dhacday in markiiba gabadha u dhasho 2 gabdhood ninkii yani aad buu ugu farxay qoyska iska faraxsan bay noqdeen haddaba tii kale ee weyneyd ee yacni markii hore guursaday ba aad uga cadhootay inay 2 gabdhood dhashay ninkii bayna u yeedho ixtir kaalay waxaan doonayaa in aad dishid 2 gabdhood yani sidee buu yidhi waxay tiri yacni ma doonayo cid ku dhaxasha waxaan doonayaa in aan ku siiyo lacagtayda oo dhan islaantana bas bay lahayd guri bay lahayd ee ku saxeexday yacni meel weyn oo cimaarada hal guri ka iibsatay markii isagiina wuxuu soo jeediyey xaaskiisii yarayd wuxuu yidhi ka waran markii hore waa diiday waa dembi caruurtaydii laakiin waxa caqliga aan bageli karayn hooyadii waa yeesheen gabdhaheedii la dilo wuxuu soo qaadeen joog yaan odhan sorry waxay ku shubeen suuliga qaybtan lagu qubaysto ama yacni la dhex galo baa waxay ku shubeen baadka biyo badan ilmihii gabadhii ugu horeysay soo qaadeen waa ku dhex rideen yacni ilaa ay dhimanaysay tii kale soo qaadeen waa ku dhex rideen waa 2 naagood ninkii muxuu samaynayaa video buu ka duubayaa wuxuuna ka duubayaa yacni taweyn badanaa tii lahayd lacagta maxay tahay waan ku siinayaa haddii ay hadalkeeda ka noqoto soo videogan askarta ugu soo bandhigo waxa dhacday meydkii inay qariyeen cidnana ma ogaan waa iska aaseen yacni caruur delatabayana mahad caruur waalidkood aaseen yaa doondoonanaya waxa dhacday in markii ay dhowr sanad ka soo wareegtay in misna haweeneydii uur yeelatay islaantiina sidii yacni ay ballankeeda qaaday waa ku saxeexday laakiin dee gurigu iskaga wada nool yihiin wuu qabaa haddaba waxa dhacday inay islaantan misna cadhooto oo tiraahdo naa wariyaahe miyaan ku goran cid ku dhaxasho ma rabo kan caqligiisa maba isticmaalayo ilmihii buu qaaday doorkan wiil bay u dhashay yacni wiilkii buu qaaday sidii kuwii si lamida ayuu u dilay markii hore uu caloosha ku jiray dhowr jeer buu isku dayay inuu dilo maruu gabadha laado maruu timaha jiido isiraado yacni ilmahan ha dhinto laakiin alla dilaa dhintay yacni oo dee qof ilaahay dilaayo unbaa dhinta markii uu dhashay buu inankii yaraa qarqiyey halkii buuna ku dhintay waxa dhacday in uu markii ay adigu bilo ka soo wareegtay uu xaaskii yarid sanifo yacni iskaba dhex arko mar walba waa dilayaa mar walba markuu soo galo guriga waa dilayaa waa ku qaylinayaa timuhu ka goynayaa maalintii dambe siduu sidaa ugu wada iskaga dulqaadinaysay oo iyaduna ay ka baqaysay in gurigan laga eriyo bay maalintii dambe uu yidhi iga bax guriga intuu dilay gurigii buu dabadda uga saaray yacni meelay aado ma jirto gabadhani dabadii ba iska fadhiisatay iyada ooyeysa qofkii ka mas-uulka ahaa guriga ayaa wuxuu soo maray wadada wuxuu arkay gabadhan halka ka ooyeysa wuxuuna yidhi maxaa ku helay adigu qisadii bay sideedii u sheegtay sidaa iyo sidaasaa dhacday caruurteedii buu dilay anigu kama raalle ahay isagaiyo naagtana ku shuraakoobay xitaa wuu duubay kamarada halkii baa lagu soo qabtay halkii baana lagu xukumay waan rajaynayaa qisadana inaad ka hesheen fadlan channelka subscribe saar gambaleelka furo video yadana like saar waad mahadsanto asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu